بابا تعليم تاريخ درجة يبيرا كيان بلو تبدو دقالها تركنا يا علي دقلا تركنا يا علي بسم الله الرحمن الرحيم ماشي دولة فدرالكو الدوينها توسي كرتو oo oran karo Soomaaliya wali waxba u nool waa dhulka Puntland ka taliso Somaliland waa la og yahay Soomaalinimadii iyo Soomaali kamid ahaantii waliba aan idhaahdo Soomaalinimadii aan dhihina Somaliland Soomaaliya kamid ahaanteedii waa tan diiday waa tan calankii meel fagaara ku gubtay waa kuwa madaxdeedu habeen iyo maalin ku khudbaynayaan ajnabiga inay ka jecel yihiin Soomaalinimada iyo Soomaalidaba haddaba Puntland oo dhul Soomaaliyeed oo Soomaalinimadii ogol ah oo maamul Soomaaliyeed ka jiro oo Soomaaliya qayb ka ah oo dhiig iyo dhaqaale waxay haysay Soomaali soo celinteeda gelisay oo diyaar u ah hadda in maamulada ka dhalanaya federaalku la diriraan oo dhaqaalaha ka xanibaan oo colaad ula taagnaadaan habeen iyo maalin Somaliland oo diidan Soomaalinimadiina habeen iyo maalin lala garab taagnaado ee dhaqaalo arintaas wax la yaab leh noqoto wax la yaab leh ayay noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama fursado kale ha noqoto oo dawladda federaalka ee magaceed iyo madaxeeda ama adduunka lagaga helo ama iyadu ay gacanta ku haysa ha noqotee waxa loogu roonaaday markii la isbarbar dhigo Puntland iyo Somaliland baa loogu roonaaday oo loogu roon yahay oo haddeer habeen maalin ay dhacaysaa sidaas Puntland iyo shacabkeedana waxa abaal looga dhigay cunaqabatayn iyo la dagaalan iyo fadqala la ka abuurid habeen iyo maalin aan kala go' lahayn waxa marka la yaab ah dawladda federaalka hadba ragga yimaada sida ay u fakarayaan oo u xisaabtamayaan oo Soomaaliya ay madaxda ugu yihiin oo ay matalkii Soomaaliya madaxda ku yihiin oo ay wax ku doonayaan sidaas la yaab leh ma waxay doonayaan wixii Soomaaliya iyo wada jirka ogol inay fogeeyaan oo la diriraan dhulkii Soomaaliyeed qaybna waxa haysta nimanka la diriraya dawlad Soomaaliyeed oo Soomaaliya waxa ka jira iyo wixii ka dhashaba la diriraya qayb haysta qaybna ajnabi baa fadhiya Somaliland baa soo hartay Soomaalinimadii oo dhan bay banaanka uga baxday Puntland kaliya ayaa la hayaa meel Soomaaliyeed oo Soomaalinimadiina ogol calankii Soomaaliyeedna ka taagan yahay nabadna ah dawladda federaalka caqliyeedu wuxuu ku ururay meeshii laftigeeda in la diriro habeen iyo maalin arinta maxaa laga wadaa arintaasi haddaba su'aal baa saaran ma arin ajnabi wata meeshii Soomaaliya rajo ka imaan kartaba in la burburiyo miyaa arintaasi maxalanay ka soo fulaysaa ma siyaasadaha reer galbeedka ay ka soo fulaysaa ma inaan Soomaaliya wax dambe oo rajo abuuri kara ka muuqan bay ku salaysan tahay oo qoladan hadba madaxda kooxahan hadba madaxda ka noqonaya federaalka ma amar beesha caalamka ka imanaya oo qarsoon bay ku shaqaynayaan oo ma waxaanu u malaynaa ama ictiqaadnaa beesha caalamka xalana fadhida Soomaaliya inay sii tirtirayso meeshii rajo ka muuqan kartana lagu jahaynayo hadba kuwii siyaasadda madax ka noqda federaalka inay meesha baaba'shaan sababta Somaliland loogu jajaban yahay loogu rooyay Puntlandna loola dirirayo maamulka federaalku habeen maalin loo dirirayo ma burburin ba meel rajo Soomaaliyeed ka muuqan karo in la baaba'sho miyaa loola jeedaa oo maxalana siyaasaddaas ka soo fulaysa waxaan jeclaan lahaa xalane dawladaha fadhiya oo adduunka ka socda inay noo caddahay inay Soomaaliya oo soo noolaata caawinayaan oo saa noola joogaan iyo inay Soomaaliya god dheer ku sii ridayaan oo xabaalayaan oo sii aasayaan
su-aasha waa in la isweydiiyaa ummadda Soomaaliyeedna waa inay isweydiisaa dadka reer Puntland waa inay isweydiiyaan xalana qolada noo fadhida ma noo raad gadayaan oo qarannimadeena iyo baaba'ayso qarannimadii Soomaaliyeed oo sii libdhaysa bay u raad gadayaan oo inay waxinala qabanayaan oo hoodaada abay inoola joogaan mise inay waxinala qabanayaan baa run ah taas waa su'aal meesha ku jirta dadka reer Puntland su'aasha inay isweydiiyaan way qabataa la dagaalka habeen iyo maalin haysta oo loogu daraanayo meeshii kaliya Soomaali rajadeedu ka bidhaami lahayd iyadoo ah habeen iyo maalin la dagaalamayo xagee dagaalkaas ka socda dagaalkaas la dagaalamaya war armu ka weyn yahay maamulada federaalka imaanaya oo siyaasad la dagaalamayso oo shishe meesha ku jirta hadday sidaa tahay waa khatar Soomaaliya oo dhan haysato lagu sameeynayo hadday maamulada oo aqligoodu sidaa tusay tahayna maangaabnimo xun weey oo saa'ida meeshii rajada yari ka muuqan lahayd adduunka la keeni lahaa ومثلا حسن شيخ محمود أما فرماجة أوران لها صوماليا وصون نولانيسا dhulkan iyo dadkan nabadda inta ballaar la eegba kamida Soomaaliya inay soo noqon ka dhanasana u dilay ay dhigi lahaayeen ayadii in lala dirirayo habeen iyo maalin arintaasu arin si fudud loo liqi kara ama laga indhaqarsan kara ma haddaba waxaan leenahay oo u soo jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo maamulada federaalka ka imanaya labadaba waxaan u soo jeedinaynaa mididu meel aan Soomaalidu waxay ku mahmaadaan midi meel aan xubin ahayn ma marto laf dheer ma kala goyn karo dhexdeeda laakiin meeshay kala goyska ka tahay bay goysaa in Puntland lala dirirayo habeen iyo maalin arintaas arin la garowsan kara ma aha arin macquulana ma aha haddii wadanka qarannimadiisa lala dirirayo la baabi'inayo cadow inoo soo dhuuntay oo rajada la tirtirayo dee in la hodnaado ma aha waa in lagu baraarugaa talana laga yeeshaa iyo go'aan haddii caqli xumo maamulada federaalka ka imanaysa ay tahayna waa in loo caqli celiyaa oo lala garnaqsadaa marka wax loo dulqaadan karana ma aha wax la aqbali karana ma aha Puntland dagaalka dawladda federaalku ay kula jirto iyo fadqalalada iyo fidnaynta iyo isku dirka iyo cunaqabataynta ama ardada tacliinta laga cunaqabataynayo ama mashaariicdii la cunaqabataynayo ama wada jirkeedii la burburinayo wax la garowsan karo arinta ma aha in la huwanaado bustara ma aha arinta waa in laga garnaqsadaa si fagaara ah looga garnaqsadaa dawladda federaalka oo hadda Xasan Sheekh Maxamuud madaxda ka yahay sida Xasan u dhaqmayo waa loo jeedaa Soomaaliya dhan waa u jeedaa Xasan wuxuu ku haftay oo ku wareersan yahay oo meeshu ka yimid iyo meeshu u socdo iskaga qaldantay oo aad moodaysaa sidii inuusan maskaxdiisu aysan dhamayn u ekaaday xafiiltan meelu ka socdo iyo meelu ku socdo aan la aqoon Xasan cidda uu la dirirayo iyo cidda uu la jiraba waa isku dhaxyaacday arintiisu marka siyaasadiisu xagga dibadda arrimaha dibaddana inta badan dabiya baasiin buu maaragtay labada gacmood ku qaataa laba dawladood oo aan is arki karin buu inta mid barqadii u tago mid kale la gali ka dambe u tagaya tii uu barqadii u tagay marka waa gidaadaado waa ka gidaada waa ka xanaaqda tii dambe u tagayna aamini mayso siyaasadiisa arrimaha dibaddu waa sidaas oo miiran intii bar Allah ah mowqifka uu Itoobiya ka istaagay oo isaguna caata ah mowqif caata ah oo hadal afka ah oo aan ficil lahayn ah waxa la moodi karaa mowqifkaasi inuu yahay mowqif ilaa xad caataba ha ahaadee mowqif cayilin iyo xoojin u baahan laakiin bays ahaan macquul ahaan laha hase yeeshee wax tallaabo ah oo kale oo Xasan deyn baa la cafiyay uu leeyahayna borosay soo socday bay ahayd isagu wuxuu keenay ma aysa ahayn sida Xasan u dhaqmayo ala kulli xaal waxay u eg tahay qof isku dhaxyaacay oo wax si ka yihiin oo qabaa'ilkii ku dhex wareersan oo jifidiisii ku dhex wareersan oo siyaasadiisu isku dhaxyaacsan tahay gudo iyo dibad oo baarlamaankii ku rafanaya oo dastuurkii ku rafanaya oo maaragtay dawlad goboleed inuu wax la xafiiltamo kaliya ku indhala iyo in lagu xanto waxbuu boobaya xafiiltan buu la galay shacabkii iyo jifooyinkii iyo meel walba
xafiiltan indhaha ku indhabeelay iyo iyadoo lagu eedaynayo boob inuu ku jiro habeen iyo maalin marka siyaasadda xasan ku jira haddii wax qabta haysto waxay ahayd in la yidhaahdo warwaad waalatay bal fariisa halka kan sida tan aad ku jidhaa miyir qabuma eka in la qabtay ahayd oo la yidhahdo war balkaale oo lala hadlo wax laga sugi karaa arrintaasuna ma aha sida xasan u dhaqmay hadda ma aha dagaalka uu marka Puntland kula jiro waa iska maqaadiir ay meelay u socotiyo meelay ka socoto aan la garanayn way waxa inta uu heliyay on qodob yar ka oranaya qodobka kale intaana u gudbin maamulka SSC oo calankii Soomaaliyeed babinaya dawladda federaalku inaanay Soomaalinimadii raadinayn kuna maqanayn calaamad cad oo muuqata ayay waxay u tahay SSC wayna faydayo daboolkii ka rogtay SSC maamulkaas federaalka hadda jooga inaanu Soomaalina raadinayn Soomaalinimada isu raadinayn marxaati cad waxa u ah siduu SSC ula dhaqmayo oo lagu khasbayo bal adduunka xagee lagu arkay wadankii qayb kamida oo la goosanayo oo loo gacan gelinayo waliba cadow iyo shisheeye loola gelayo qayb kamid oo diidan leeyahay may kamid baatiin iyaga dhaqaalaha la idin raacinaya iyaga siyaasadda ku raacaysan iyagaanu idin kala xaalaynaa idinko waxaan arkayay ra'iisul wasaare Xamse oo la weydiiyay maamulka SSC mowqifka xukuumaddu ka taagan tahay oo liita muxuu yahay maba ka warqabo yiri midhaadaaba iiga waroon waxaan se jecel lahay Soomaaliland oo wada jidhulay hadda kelmadda Soomaaliland oo wada jidha inaanu u jajabnaano u dabacsanaano baan rabnaa buuleeyahado aanu wax walba ugu tanaasulo Soomaaliland oo wada jidha iyo Soomaaliland oo kale jidha ka hor SSC baa la weydiiyay oo Soomaalinimo ogol oo Soomaaliya inay ka mid tahay ku dhimanaysa oo ku mintidaysa meel uga booday fiiri marka ra'iisul wasaaruhu hadduu isweydiin lahaa mas'uuliyadiisu waxay tahay soo kamid ma aha mas'uuliyadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laga rabo ugu yaraan xataa qabid ahaan inuu qabo fikriyan inuu qabo dalka in la isku hayo iyo wixii ogol wadanka isku hayntiisa in la soo dhaweeyo soo siyaasaddu sidaa ma ay ahayn wallahi ma garanayo yiri adaaba iga og arrintaas laakiin Soomaaliland wada jidaan rabnaa marka in dhala'aan ceeb ah oo laga xishoodo golo la iman karin weeye sidaas hadalka ayo wixii la mid ah marka maamulka xamar ka jira oo federaalka ku magacaabani kuma maqna Soomaali isu keenkeed iyo isku haynteed haday taasi run ka tahay SSC bu soo dhaweyn lahaa SSC bu xayndaabka Soomaaliya soo gelin lahaa kuma baritaareen hantina kuma siiyeen maamulka gooni u goosadka ah oo amxaara hadda u galay kuma si baritaareen inuu si afduubto oo ku maalgeliyo yiraahdo xuquuqdiini Muuse bixiba idin haya waxay cadeynaysaa inaan loogu maqnayn ummadda Soomaaliyeed Soomaalinimo iyo qarannimo soo noqota maamulkaasi inuu ku maqnayn mana garan karo mana fahmi karo mana u socdo damiirkeedina kama muuqdo maamul faashil ah oo ceeb awey marka taas waxaan kaga tegayaa halka dawladda federaalka iyo mowqifka hadda taagantay sa u dhaqmayso oo fadeexada ah iyo sida ay uga gardaran tahay Puntland loogana gardaraa maamulka iyo kii ka horeeyay ay uga gardaraayeen Puntland iyo xaq darrada laga gelayo iyo sida loo baabi'inayo rajo Soomaaliyeed meeshii ay ka soo bidhaami lahaydba taa intaasan kaga tegay